waa 3 maalmood kadib markii uu ka soo naaxay koomadii uu ku jiray isla markaasna uu dib u helay miirkiisii iyo garashadiisii. Axmed Muxiidiin oo ah tababare team ayaa ku galay Muqdisho shil mooto oo halistiisa leh. isagoo ku jira xaalad miirbeel ah ayaa si degdeg ah loogu soo qaaday isbitaalka Soomaali Suudanees halka oo ay ku qaabileen khubarada daryeelka xaaladaha gaarka ah ee ICU-da. We admitted Ahmed Muhyiddin, 24 years old, gym trainer. He was subjected to motor vehicle accident. waxaana loo keenay Axmed Muxiidiin 24 sano jir tababare gym oo soo galay shil mooto feekona. waxaa markiiba loo soo gudbiyay qaybta xaaladaha degdega ee dadka codka u daranaya ICU-da isbitaalka Soomaali Suudanees si xaaladiisa caafimaad si dhow loola socdo. muddo 3 maalmood waxaa lagu quudinayay tubo maadaama uusan awoodin oo si toos ah afka wax uga qaato. 3 maalin kadib waxaa laga saaray tubadii caloosha uga jirtay kadib markii uu muujiyo horumar caafimaad oo la taaban karo. Axmed hadda xaaladiisu waa mid aad u wanaagsan waxaana muuqata inuu si buuxda uga soo kabanayo dhaawaca shilka ka soo gaaray. waxaa garabkiis maalmahan dhan aheen saaxiibkeen Axmed oo dadka u yaqaanaan Axmed Kuti ama Axmed Jimboy oo 3 maalin la soo dhaafay iska miir daboolna haddana shalay tubooyinkii oo calooshiis ku jiray oo neef siinaysay laga bixiyay hadduu caafimaad qabaa maskaxda jug ka gaartay jug aad u yar iyo weji goonka oo ka jabay iyo sanbabada caloosha oo wax ka gaaray hadda xaaladiis aad u fiican tahay neef saa qaadino oxygen wax ku xirno dhakhtarka meeshan ku qoran Ilaahay khayr ha siiyo Dr. Maxamed Al Nasiri oo Suudanees anikan xaaladiis intaan soo istaajiyay iyo sidoo kale kalkaaliyaasha wiilasha iyo gabdhaha asaga caawinayeen oo kuma celinaynaa Soomaali Suudanees oo shaqo noo qabatay kadib markii uu ka soo baxay xaaladii koomada ahayd kana soo gudbay habraaci qaybta xaaladaha gaarka ah. Axmed waxaa loo diray sawirada raajooyinka iyo baaritaano dheeri ah kuwaasi oo muujiyay inuu jiro jab dhanka wajiga ah. There was aesthetic problem and view problem and wide wound and zygomatic bone fracture. bukaanku wuxuu lahaa dhibaato qallafsanaan ah iyo caqabad aragtida la xiriirta waxaana jiray nabarro ballaaran iyo jab yar. sidaas darteed waxaan go'aansanay in aan qalliin u sameeyno si loo furo loona hagaajiyo nabarrada. qalliinka kadib Ilaahay ayaa mahad leh dhibaatadii waan xallinay. Axmedna wuu dhool cadeynayaa isagoo faraxsan. Iba ayaa mahad leh dhammaanteedna waan faraxsannahay. waxaan u mahad celinayaa si gaar ah dhammaan howlwadeennada isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudanees qaybta bukaanjiifka qaybta ICU-da iyo qaybaha kala duwan ee kooxaha qalliinka. Big thanks for all our colleagues for effort. It was a very critical situation and he was suffering a lot during his staying, but alhamdulillah he improved. xaaladiisu waxay ahayd mid aad halis u ah laakiin alxamdulillah hadda xaalkiisu waa uu soo hagaagay. wuu fiican yahay, wuu hadli karaa, xiriir ayuu dadka la samayn karaa, wuuna socon karaa. maanta Axmed waxa uu gaaray marxaladii ugu dambeysay oo isbitaalka uga bixi lahaa. waxaanaan dhammaanteen aad uga faraxsannahay horumarka uu sameeyey iyo rajada cusub oo loo yimid Axmed. alxamdulillah Ilaahay mahadiisa waxaan soo maray oo waxaan hore u soo maray. alxamdulillah haddana waxaan ahay qof aad u wanaagsan, qof xanuunsan ahaa oo bukaan ah. alxamdulillah laakiin maanta waxaan ahay xilligan la taaganahay qof aad u wanaagsan oo caafimaad qabo. Ilaahay ka sokow alxamdulillah waan ku faraxsanahay ina maanta dhinacyadeeda ay fadhiyaan dhaqtariinta Soomaali Suudanees. farxadu kaligiis kuma koobna Axmed, xitaa kalkaaliyaashiisii baxnaaninayay qoyskiisa iyo saaxiibadiisa ayaa dareemaya in dadaalkoodu miro dhalay. maanta waxaa aad ugu faraxsanahay Axmed oo caafimaad qabo in isbitaalka laga fasaxo. maalinka isbitaalka la keenay Axmed emergency waxaa la keenay soo kooma ku jiro. alxamdulillah muddo badan oo intubation ahaa ICU jiifay waxaa loo guuleystay in extubate la dhaho kadibna oo qalliin loo sameeyo maxillofacialka oo jab ka jiray daanka. alxamdulillah qalliinkiisna waa loo guuleystay waaduu jiifay. maanta Ilaahay wuxuu qadaray inuu lugihiisa asoo ku socdo isbitaalka laga fasaxo. maadaasna waxaa iska le Ilaahay ka sakoona dhaqaatiirta ku dadaashay team ICU Dr. Samir iyo dhammaan nursingka. alxamdulillah Ilaahay mahadiisa Soomaali Suudanees oo ahaa isbitaalka aan keenay oo si fiican nala soo dhaweeyay qaybta emergency oo ilaa aan loo gudbiyay qaybta ICU. waa aad ugu mahad celinaynaa team si ay u wada dhan yihiin dhammaan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha iyo maamulka.
sidoo kale waxaa u madcelinaynaa asxaabtiisa oo aad garab u ahaa yani habeenkaas ilaa hadda nala joogaan iyo familkii iyo wixii markaasi inta qof oo markaasi garab ahayd run ahaantii fit family waxaa leeyahay aad u mahadsan tihiin intana inaa idinka mahadceliyo waa aad qasbi u ahay axmed hadda uu caafimaad qabaa alxamdulilah haddana lugihiisa ku socdaa waxaa ilaahay ugu baryaynaa inta dhiman ilaahay caafimaad siiyo dhammaan bahda Soomaali Suudaanis waxaa leenahay jazaakumullahu khayran waxaan rajaynaynaa in bulshada adeega u haysaan inaa meesha ay ka sii wadaan waxaan idinka mahadcelinaynaa wiilka siduu ahaa maanta siduu yahay ilaahay ka soko inaa idinka takhaatiirtiini iyo howlwadeennadiina ay ka dambeeyeen waxaa leenahay marka alxamdulilah